عباس حسين موسى waxaad faahfaahin naga siisaa qarax la sheegayo inuu galabta ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. maxamed daacad aad baa u mahadsan tahay abaara ish maqribkii markii salaada maqrib la bilowday ka hor ayaa magaalada waxaa ka dhacay rasaas marka aad u xooganeed oo jihooyin kala duwan oo magaalada ka dhacay gaar ahaan nawaaxiga xarunta madaxtooyada Soomaaliya kadib waxaa xigay in qarax uu ka dhacay isgoyska Juba ee magaalada Muqdisho halkaas oo qaraxa uu ka dhacay meel hotel Doorbin la yiraahdo meel ka soo horjeedo oo wadada gaarigu dad aad u mashquul badneed marka uu qaraxu ka dhacay waxaana wadadaasi la sheegaya in markii qaraxu dhacayay aad u mareeyeen dadweyne kala duwan oo u badnaa dad ka yimid xeebta liida ee Muqdisho oo halkaasi wada aad u mashquul badan ay ahayd qaraxa koobaad halkaas ayuu ka dhacay salaada maqrib inta la gelin ka hor weli faahfaahin rasmi ah iyo khasaaraha uu geystay lama sheegin laakiin in khasaare uu jiro ay dadka goobjoogayaasha qaar ay sheegayaan qaraxa kale ayaa waxa uu ka dhacay salaada maqrib markii laga baxay kadib wadada sayidka iyo madaxtooyo inta u dhaxeyso waxaana qaraxaasi uu ahaa mid ciidamada ammaanku la sheegay in gaarigii waxyaabaha qarxa waday ay joojiyeen kadibna gaarigu isku dayay in wadadaasi ka gudbo kadibna rasaas ciidanku ay ku fureen sidaana kooxa la sheegay inay hubeysnaayeen ciidamada ay rasaas isku wadaarsadeen inkastoo faahfaahin rasmi ilaa hadda aan dhinacaas ciidana laga helin waxaana qaraxaasi labaad ka dhacay sayidka la sheegaya in rasaas xigta kadib iskoorimaad ciidamada dawladda ka tirsan iyo kooxdii weerarka geysato uu dhex maray laakiin lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga iyana halkaasi ka dhashay magaaladuna caawa aad ay u kala xiran tahay ani meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada ayaan joogaa waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogteen rag ka mid ah kooxihii weerarka soo geystay gaar ahaan kuwii saarnaa gaarigii markaa ciidanku ay joojiyeen wadada sayidka markaa gaarigaasna la sheegay dhinaca madaxtooyuhu kusii jeeday oo weerarku ku wajahnaa waan gartay Cabas ogaalkiina qaraxyadan yaa lala beegsanayay weli ilaa hadda faahfaahinta lama xaqiijin karo maadaama xilli gabaldhaca qaraxu uu dhacay kadibna ciidamada ammaanku ay wadada xireen inkastoo hadda xaaladu ay tahay mid degan laakiin qaraxa hore ee dhacay ayaa la sheegayaa isgoyska Juba ka dhacay inuu ka dhacay xarun ilaa hadda aan xaqiijin halka laakiin hotel Doorbin la yiraahdo oo Bar Fiat ahaa in qaraxii hore uu ka dhacay wada laami oo caadi dadku ay maraan ay ahayd laakiin cidda lala beegsaday ilaa hadda aan xaqiijin karin inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in gaadiid mas'uuliyiin dawladda ka tirsan ay saarnaayeen wadada ay marayeen balse lama hubo ilaa hadda faahfaahinta la xiriirta qaraxaasi Juba ka dhacay sayidka meel u dhow ka dhacana kaas ayaa aad marar daqiiqado badan rasaas ay dhex mareyseen ciidamada iyo kooxdii markaa weerarka soo qaaday inkastoo la leeyahay qaar ka mid raggii weerarka soo qaaday ciidamada ayaa toogtay waan gartay Cabas shalay mas'uuliyiin xukuumadda ka tirsan waxay sheegeen in uu magaalada ku dhex jiro gaari la tuhunsan yahay inuu sido qaraxyo taasoo ay suuragal tahay inuu magaalada qaraxyo ka fuliyo xiriir noocee ayaad leedahay uu ka dhaxeeyaa qaraxan iyo tuhunkii shalay ay xukuumaddu shaacisay runtii daacadow labada qarax markaad eegto aad ayaa u moodaa in labada qarax ay iskula socdeen maadaama qaraxii hore uu dhacay salaadii maqrib markii loo tagnaa kan kalena uu dhacay markii salaada laga baxay laakiin gaadiidkii shalay dawladdu ay sheegtay in qaraxyada uu waday iyo midkan maanta labada gaari ee qaraxday inta sida ay yihiin iyo xiriirka ka dhaxeeyo waxaan ugu xaqiijin karin maadaama qaraxuna uu dhacay dawladduna weli aysan markaa wax faahfaahin aysan ka bixin